بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada barnaamijkeena aan kaga hadlaynay faaqiyada suuqa bakaaraha qaybtii saddexaad qaybtii koowaad iyo qaybtii labaad waxa aynu ku soo kala sheegnay halka suuqa bakaaraha magac ahaan uu ka soo bilowday iyo waqtiga uu soo shaabaxay qaybtani waxa aynu kaga hadli doonaa maamulka suuqa bakaaraha waxa uu leeyahay guddi maamulo kuwaasi oo ka kooban 6 xubnood 5 rag ah iyo 1 dumar ah waxa ayna mas'uul ka yihiin dhammaan maamulka guud ee suuqa bakaaraha marka laga reebo gudoomiyaha shanta kale waxa ay ka kala socdaan qaybaha suuqa uu ka kooban yahay qayb waliba waxa ay leedahay guddi hoosaad isku xira howlaha qaybtaasi isla markaana la shaqeeya guddiga sare xubnaha guddiga waxa soo doorta ganacsatada waxa ayna xilka hayaan muddo 2 sano ah dadku ma jecla in ay ka mid noqdaan ama ay ku sii jiraan guddiga muddo dheer qaybtan waxa aynu kaga hadli doonaa saamaynta suuqa bakaaraha waa xarunta ugu weyn ee ganacsiga Soomaaliya waxa degan dhammaan shirkadaha xawaaladaha sidoo kale suuqa isaga ayaa jaangooya sicirka sarifka xawaaladaha qayb weyn ayay ka qaataan sicirka sarifka waayo in ka badan 1 milyan oo Soomaali ah ayaa dalka dibadiisa ku nool kuwaasi oo dalka u soo xawila lacag ka badan 1.5 bilyan oo dollar sanadkii 14 xawaaladood ayaa ku yaala suuqa bakaaraha kuwaasi oo fududeeya in ay dadku helaan ama ay diraan lacagaha cadaanka ah suuqa bakaaraha waa meesha lagu jaangooyo sarifka shilinka Soomaaliga subax waliba sarifilayaasha dalka oo dhan waxa ay soo wacaan suuqa si ay u ogaadaan sarifka meesha uu marayo ganacsatada ayaa isku xil saara jaangooynta sarifka shilinka Soomaaliga maadaama uusan dalka ka jirin bangi dhexe oo lacagta shilinka Soomaaliga jaangooya suuqa bakaaraha waa goobta ugu weyn oo ay u soo shaqo tagaan dadka magaalada Muqdisho shaqaalahaasi oo isugu jira kuwa joogta ah iyo kuwa aan joogta ahayn markii aad soo marto subaxnimada hore magaalada waxaad ku arkaysaa dad wadooyinka taagtaagan dadkaasi oo sugayo in shaqo loogu yeero dadkani waxa ay ka shaqeeyaan shaqooyin kala duwan sida kuwa xoolaha qala kuwa guryaha dhisa iyo kuwa dusha ku xamaasha dadkani oo ka kala yimaada dhammaan daafaha magaalada Muqdisho waxa ay ku kala tartamaan fursada shaqo ee ka jirta suuqa bakaaraha inta ayaynu ku soo gabagabaynaa barnaamijkii aynu kaga hadlaynay faaqiyada suuqa bakaaraha qaybtiisa saddexaad si aad uga socoto qaybta xigta fadlan subscribe saar gambalaalkana taabo mahadsanid